maanta waxay noqotaa farxad gaar ah haddii aan dugsiga farsamada gacanta ee Xeelo Bariis runtii iskuulkan muddo 4 sano ah ayuu socdaa intaasna waxaan ka shaqeynaynay muddadaas dheer iyo aan rabnaa haddana inaan sii wadno in xirfadlayaal Soomaaliyeed oo gacanta wax ka bartay inay iskuulkan ka baxaan si dalkeenna ay wax u qabtaan xirfaddu waa waxa kaliya ee dalka dib loogu dhiso haddii aadan xirfad lahayn waxba ma dhisi kartid dalkan burburku ku dhacay iyo dhibaatada ku dhacdana waxa qayb ka qaadan kara farsamada gacanta inaad wax barato oo farsamada barato runtii dadaal weyn ayay waxbarashada Soomaaliya iyo runtii 30 sano ee dibka jiray ka shaqeynayeen dal burbursan ee jaamacad laga baxayo Soomaaliya ayaa ku qalin jirisay oo mataqaan runtii dadku dhabar jeex macnaha ka shaqeeyay arintaasna waxaan leenahay aad u mahadsan yihiin Xeelo Bariis markuu uu arkay waxbarashadu inay ka dhiman tahay qaybta farsamada annagu waxaan reer ku dhaqmo farsamo Xeelo Bariis wuxuu ahaa ninka ugu horeeyay Soomaaliya bir baabuur yar ee magaalada Basra raaco ragii ugu horeeyay waa ninka xoolahan tabcay wuxuu ka soo bilaabay nanaci lows wuxuu soo sameeyay baabuur yar wuxuu haddana noqday inuu wuxuu raba sameeyo warshada yactirka gaadiidka ayuu halkan ka sameeyay wuxuu raba inuu gaarsiiyo maadi in Bariis baabuur ah inuu halkan xeradan ka baxo laakiin waqtigan oo saamixi waayay geeridii Ilaahayna way timid 30 sano lugooye ah oo runtii dalkeena iska qaribnayna wayna soo martay annaga marka waxaan rabnaa inaan yani ka bilowno taariikhdii uu lahaa Allah u naxariistay aabaheen inaan hor u sii wadno ka bacdi markaan dalka dib ugu soo noqonayna waxaan weynay farsamayaqaanadii aan naqiinay dalka laba sabab darteed xilliga warshadahan dhisay waxay ahayd 40 sano ka hor ay ku dhowdahay ninkii 40 sano ka hor wax dhisayay maanta waxa dareemi kartaa intuu da'diisa laagta markii aan weynay wixii aan naqiino waxaan isku kalifnay inaan waxbarasho bilowno farsamo ah 2014 kii 12 qofood ayaan ku bilownay oo annaga markaas aan jeebkeena aan ka mataqaana caawinayno si wax u bartaan annagana noogu shaqeeyaan dabadeedna waxaa la sii gaaray inaan iskuul farsamo ah dowladda Soomaaliyeed iyo hay'adda mataqaana Norwegian oo niis la yiraahdo inaan iska kaashano annagana aan bixino xoolihii iyo gurigii iyo meeshii la dhiglaa iyagana ardayda ka bixiyaan wixii mataqaana tasiilaad ugu baahan yihiin alxamdulillah rabbil caalamiin 150 arday ayaa mataqaana markii ugu horeysay ku bilowno after 12 arday oo u kala baxayay general mechanic construction iyo electric oo ah electric iyo mataqaana solar excellence center ayaa meeshaan loo bixiyay alxamdulillah rabbil caalamiin ardaydii ka najaxday waa kuwan qaarkood inta joogo inta ka qalin jabisay 85 meel ah 60 meel ah iyo 50 arday qalin jabinaysa intaba maanta waa shaqo heleen way shaqeystaan badankooda shaqo heleen way shaqeystaan inna waxay furteenba inay iskuul sii furaan oo naftooda ay ka shaqeeyaan ay waxbarashada ay gabdhahi ay inta mataqaana iyaga naftooda ay isku dayaan inay farsamada si saacidiyaan ay wax qabtaan maanta waxaan ku faraxsanahay yani arinta waxa loo dhigay haweenka gabdhaha hooyadii gobolka xukumaysa waa nala joogtaa hooyadii arrimaha bulshada xukumaysa waa nala joogtaa waxaan xoogaa arrinta aan ka liidanay gabdhaha ta 12 gabdhood ayaan wax barnay waxaan rabnaa waxa way gabdhaheen inay wax bartaan ay shaqeeyaan gabdhaha halkaas jooga ka soo jeedo iyo kuwa halkan fadhiyaba maanta reerkooda u shaqeystaan reerkooda wax u baraan haddii xataa ay macnaha xataa awood gaar ay leeyahay guriga wax ka qabanaya markay guriga farsamo qaadiso gabar waxaa jirta gabdhaha kamida waxay samaysay mataqaana solar ay gurigeeda ku rakibtay korontada bay ka qaadi lahayd iyada samaysatay gurigeeda korontadeedii reerkeedu ay u samaysay iyada lacag lahayn marka gabdhuhu kama liitaan ragga gabadhu waa tii anaga na dhashay gabadhu waa tii mataqaana haddana naaskeena nuujisay gabadhu haddana waa tii macnaha aan ku faanay ahayd runtii marka farsamada xoogaa gabdhuhu waxaad moodaa inay leeyihiin anoo gabadha see farsamo u baranaya marka taas aan arkaa gabdhuhu inay ka mataqaana ay ka baxaan ay wax bartaan haddii xataa aysan shaqo kale aadin gurigeeda iyo reerkeeda korontada ka damta iyo alxan gurigeeda u baahay hadday ku qabata xataa yani waxa way wax weyn ay dalka u soo kordhiso waa dalkan marka hadda alxamdulillah rabbil caalamiin ardaydii ka qalin jabisay waa kuwa hadda shaqeeyo
وقوة هذا مثلا أنا هاي البريسة وشقيو جوجو سيدا أرتي كورنتا أي مجال ودقلين صرت أنا أقول غير مجال حمر مدعيني إنه هو بس علي مهدي محمد كورنتا وهاي اللي أرتيها كبح مركا يعني قوة صول هذا مجال الجلي وأرتيها كبح إسكول كي وشقيان إسكول كي سوق هذا دي وكانان دي بقى هذا أرتيها كروح لو مباراه marka waa faa'iido oo faa'iido kala dhasho waaye marka iyaga loo adkaystay la soo tabcayna iyaga wax si tabcaan waxaan rabaa marka wala dawlad wala shacab wala qof walba oo aan nahay waa inaan u dhiiranaa inaan farsamada gacanta barano adduunka horumar waxa uu sareeyo wadamada adduunka tagay sida Jarmalka oo kale sida mataqaanaa Norway oo kale sida ilaahay Sweden oo kale sida UK oo kale sida Mareykan oo kale waxa horumar lagu gaaray farsamo وشذا بحاول يسكر فرسمه بير محل وقوي كرا فرسمه كلون محل وهذا كرا فرسمه وحاسونا مركب فرسمه دي أوبا مركب إن ما أنت شغالك الأجنبي دبت أنت نوجي مادن أيدل كيان كشقيان فوق ماشاس أنا جوا بقول كي بطلات إيشان مجتمع الصومالي اللي يريين حاجة محمد ده ماشاس يعني يحيروا يكون جرتوا متقنا إن إسحاق الآن مركب حان رجينا إن شاء الله تعالى كل قدوميها متقنا إذا دود وإحنا إنه شيء دونتو أنا هذا حيلا بريسنا هاي قبلها أيام نوع نمبر 1 سواء تو قبله ما يلا بدنا نحاول كذا نوهيسا أنا كان إذا لا قبلنا لا مركب قبله وحوي وحسائي إذا متقنا له باهي هواي وحربنا إني قبله سودي هدان إني فرسمة برتان قدومي أورك وين كمان تقول شيء إنك تبوي متى تكتبوه في السما برتان أنا جالو حامس كدينا أنا مالك أنا جيت قاوني جيت لأن تأفر السنهم أنا ويا خبر الله إن رادنا إن شاء الله تعالى أنا جانا إسكودينا سيدل كان وابر بريد كما هي السنة أود قال إستجاب الحيان دول كان مسنينا إن متقنا حيل بريس نفتي سأيام متقنا كان مسنا أيو بني آدم وهو مركب جارو حقوقي أو غير كيس كجرا علم نافع رسول كان أمانة قفنا وخبرته كل شقتكته أجر كاغو كوس عنا إلى نمط هاي لبري صدق أسوأ قبل الجيران متقنا لا يروح براتو شقستان أيام ما أنت أجر كوس عنا مركب واحد سهلا معها مضعون واحد سهلا معها هذا وضع على يجر وضع بلعت هذا على وضع هاي لبري معي كنت مد متقنا الحمد لله رب العالمين وحقبت كذلك أنك قبرنا أنك شقينا حتى لو عن ديارنا هاي إن الناس هذا كودنا أن متقنا اللي بيجبرنا أو أن قبل يويل بإنت سوالنا وحبرك الآن برنا أنت وقتين أنا نوهر نفتنا si aan mataqaana aan dalka qaybta aan kala hayna oo qaadano dadku siyaasiyiin ma wada noqon karaan dadku waa inay bulshada u shaqeeyaan oo bulshada loo shaqeeyo hadaa tira qof walba siyaasi aan qana waxaan rabaa inaan kor tago aqal shaqeeyaha ma waa in dalka meel walba oo baahi ka jirto dad u shaqeeya lahayn insha Allah taala waa maasantihiin ku soo dhawaada hayla bariisatiin ka gobolka Saldar aad iyo aad aan u faraxsana haweenka quruxda badan iyo gabdhahayga iyo walaalahayga meesha ku arko wali maanta farxad gooni waxa ay ah inaan mulkiyo sucaad oo aan saaxiibo hore aan jirnay xilligii bartamaadkii basketka iyo adduunyada maanta meesha aan isku aragna nafteedu waxay taa farxad gooni iyo taa runtii oo aan la koobi karin soo dhawaada wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh